waad salaamantiin asxaabta halkaan ku xiran sida aan hore idinku sheegayba waxaan ugu dambeeyay bilaabi doonaa barnaamijkii aan hore idinka balaqaaday kaas oo ahaa waa kuma aktarkan waxaan hadda kadib isbuuc lagu sheekayn doonaa aktar kasta oo aadan wax badan aadan ka ogeyn taariikhdiisa aktar kasta oo aad codsataan waan ka soo hadli doonaa anigoo soo koobi doona taariikhdiisa maanta waxaa miiska noo saaran aktarka Jaineska ee Jackie Chan waa taqaanaa ninkan aflaamtiisa haddii aad daawato aflaamta hal film xitaa waad ka daawatay waana superstarka China magaca rasmiga ah aktarkan waxaa lagu magacaabaa Jackie Chan waxaan hadda loo yaqaanaa ama uu ku caan baxay magaca Jackie Chan aktarkan waxa uu ku dhashay magaalada Hong Kong bishii Abriil 1954 waqti xaadirkan waxa uu jiraa 68 sano waxa uu Jackie Chan filimada soo jilaayay tan iyo 1960 isagoo sameeyay in ka badan 150 film familkiisa waxay ka koobiyiin 4 qofood markii isaga lagu daro xaaskiisa waxa lagu magacaabaa John Lin waxa uu guursaday sanadii 1982 waxayna xaaskiisa u dhashay 2 caruur ah waxayna kala yihiin wiil iyo gabar aan ku bilaabnay wiilka waxa lagu magacaabaa Jesse Chan waxa uu dhashay 3 December sanadii 1982 waxa uu ku dhashay magaalada Los Angeles ee cariga Mareykanka waxayna hadda da'diisu tahay 39 sano gabadhana waxa lagu magacaabaa Eta NG waxayna dhalatay November 1999 waxayna ku dhalatay magaalada Hong Kong waxayna hadda da'deedu tahay 22 sano waxayna leedahay saaxiibkaas oo lagu magacaabo Anda Atom aktarkan superstarka ah ee Jackie Chan filimada uu ka soo muuqday waa film aad u tiro badan kuwii ugu fiicnaa filimadiisa waxaa ka mid ahaa film lagu magacaabi jiray Drunken Master kaas oo soo baxay sanadii 1978 iyo film kale oo lagu magacaabi jiray Police Story kaas oo sigara soo baxay sanadii 1985 iyo film kale oo lagu magacaabi jiray Dragons Forever kaas oo sigara soo baxay sanadii 1988 iyo film kale oo lagu magacaabi jiray Rumble in the Bronx kaas oo sigara soo baxay sanadii 1995 iyo film kale oo laga yaab inaad daawatay kaas oo lagu magacaabo Rush Hour kaas oo sigara soo baxay sanadii 1998 iyo filmaan badan oo aanan halkaan lagu soo koobi karin abaalmarinada uu ka helay jirista filmaanta waa ay tir badan yihiin waxaana ka mid ah abaalmarintaasi Honorary Award taas oo lagu doosiyay sanadii 2017 iyo abaalmarinta kale Asian Inspiration Award taas oo iyadana lagu doosiyay sanadii 2002 iyo abaalmarintan oo lagu magacaabo Special Award taas oo iyadana lagu doonsiiyay sanadii 2000 iyo abaalmarinta kale ee lagu magacaabo Kung Fu Panda 2 taas oo iyadana lagu doonsiiyay sanadii 2011 iyo abaalmarino kale oo aanan halkaan lagu soo koobi karin waxaad ogaataa in film jilista xitaa lagu qaato abaalmarino kala duwan oo kala qaalisan waxaana ninkan ka mid yahay aktarada caalamka ugu waaweyn waxaan filaa inaad wax badan ka ogaato taariikhda Jackie Chan maanta sheekadii koobneed oo aan ku sheekeynay aktarka Jackie Chan intaas ay ku eg tahay haddii aad jeclaysato waxaan ka soo hadli doonaa aktar kasta oo maskaxdaada ka dhex guuxaya nagu wada qaybta hoose ee faallada si aan u ogaano maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino